degmada Wadaamago ka tirsan gobolka Saraar waxaa maanta lagu qabtay munaasabad ballaaran oo ay xilka kula kala wareegayeen maayirka cusub ee degmada Wadaamago Cabdirashiid Axmed Iidle Baradho iyo maayirka hore degmadaasi Mastar Ana Saalixi. munaasabadda xil wareejinta oo ka dhacday afaafka hore dowladda hoose ee degmada Wadaamago waxaa ka soo qayb galay barasaabka gobolka Saraar Axmed Maxamed Xaashi, taliyaha qaybta booliska gobolka Saraar Xasan Ismaaciil Yuusuf Gacmayare, maayirada degmooyinka Oog iyo Qoryaale, xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale oo aad u tiro badan. ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadlay maayirka cusub ee degmada Wadaamago Cabdirashiid Axmed Iidle Baradho oo shacabka ku dhaqan degmada Wadaamago ka codsaday inay si hufan uga shaqeeyaan si uu ugu guuleysto hadafyada uu ku horumarinayo degmadaasi Wadaamago. mar saddexaad waxaan idinka mahad celinayaa sidaad u soo buux dhaafiseen labadii munaasabadood ee maalintii hore iyo maantaba aad iyo aad baad mudan tihiin deegaanka Wadaamago iyo mudanka iyo ningarboodkooda. maanta waxaan idin iftiiminayaa aan idin ballan qaadi doonaa insha Allah wax idinkana idinka iman doona aanaan mas'uulin ugu noqdo oo la dhaho hoggaan adag sida aynu ku dooranay madaxweynaha maanta talada dalka gacanta ku haya mudane Muuse Biixi Cabdi. haddaan wax badan aynu ogeyn maanta cid aan u hamranayaa ma jirayso, cidi keentay ma jirayso, cid gooni sheegan kartaa ma jirto. xukuumadda ay soo igmatay maanta halkan insha Allah waxaan idinka baryayaa inaad ii ducaysaan. sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay barasaabka gobolka Saraar, taliyaha qaybta booliska gobolka, xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Xaynaba, gaar ahaan kuwa laga soo doorto deegaanka Wadaamago, cuqaal, waxgarad, aqoon-yahan iyo mas'uuliyiin kale. waxayna dhammaantoodba eeba uga baryeen in xilka eeba u fududeeyo maayirka cusub ee degmada Wadaamago loo soo magacaabay. maanta waxaynu isugu nimi xil wareejintii labada maayir ee isbedelayay degmada Wadaamago waa aadan Jaac Saleebaan iyo Cabdirashiid Axmed Iidle. maayir marka xilka lagu dhiibo wax badan baad arkaysaa. waxaan aad iyo aad kuugu boorinayaa waxa la yiraahdo danta guud ilaali. anigoo ku hadlaya afka dumarka Wadaamago degmadan, marka hore aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa maayirkan cusub, waana ku faraxsanahay runtii. gudoomiyaha hambalyo iyo bogaadin buu mudan yahay. gudoomiyahana waxaan kula dardaarmayaa iska ilaali saddexda madaxda disha, gar leexsan, gudoon jilicsan iyo gacan laaban. inay matalayso anigoo ah qurbajoog waxaan leeyahay maayir Cabdirashiid, waxaanu nahay baalihii maanta run ahaantii waxaynu isugu nimi oo joognaa xaflad bilan oo boqoran oo qurux badan, taasoo daaran xil wareejintii maayirka cusub iyo maayirkii hore oo aynu soo wada dhaweynayno. xilku waa meerto, kursigana magac kuma qorna. maalin walba gudoomiyaha qabsanaya loo soo magacaabaya shacabkana dareenkana waxaa iskale shacabka. waxa weeye arrinta waxay u taallaa reer Wadaamago. waxaanu ka codsanaynaa shacabka reer Wadaamago runtii inay si wanaagsan ula shaqeeyaan inanka dhalinyarada ah. kollay xafladan aynu joogno ee xilka lagula kala wareegayo gudoomiyihii hore ee degmada Wadaamago iyo gudoomiyaha cusub ee degmada Wadaamago, kii horena waa sii dhaweynaynaa, kana waa soo dhaweynaynaa. mas-uulaha dowladnimo ayay ka mid tahay in waagii baryaba xilku isbedelo oo kolba ciddii dardar gelinaysa loo igmado. marka hore xilka waan kusoo dhaweynayaa, waxaan ku leeyahay maayir ku soo dhawow xilka lagu soo igmaday, aniga oo kugu kalsoon oo aad tahay nin dhalinyara oo da'yar. insha Allah waxaan rajeynayaa laga bilaabo maanta inay noqon doonto degmo horumarkeedu sare u kaco. jaamac Boodacade, warbaahinta qaranka Soomaaliland, degmada Wadaamago, gobolka Saraar.